ما هي السلام عليكم ده قرح داس هاي سايق لنا كلنا عليكم السلام دحق قرح داس أدركيسيد waxay diirinaysaa ma jirto waa toosh kaliya saa lagugu ifinaya toosh muxuu qaban karaa muxuu waa tooshoone toosh waa adigu saasan u gelinayna aad iyo aad baan idin salaamaynaa waxa weeyaan adduunyadan waxyaabo fara badan baa dhacaya waxyaabo badan baa adiga laftarkaaga kugu dhacaya waayo badan baynu kala warqaadan doonaa wax badan baynu wada wadaagi doonaa horta marka koobaad de waxa kooba ka waxyaabaha dhacaya qorraxdaas iyo dhaxanta wadaynanta walaasheemka ka cabanayso aad iyo aad wallahi soo labadaaba mid ma aad iyo aad marka horta soo dhawaadaan idin leenahay horta soo dhawaada in badan baynu kala maqnayn adduuniyo xaalkiisiga dha waayihiisii adduuniyo waayaan ku kala maqnayn laakiin maanta annagu waanu yaabno de hadalun baa wax idin wada wanaajin karaa absolutely waxaan anagu wanaajin karnaa inta hadalun baa wax idin wanaajinaye maanta wixii aynu isla aragnay muxuu ahaa horta wuxuu ahaa horta adiga weligaa iyaa lahaa jacayl adiga laftarkaaga ma kugu dhacay hadduu kugu dhacayna halistii ugu badnadaa istiruu ku gaadhsiinaya maxay ahayd de wallaahi walaalay kaasi horta iguma dhicin mid halisi gaadhsiin kaasaan aynu aragnay ee isla daawanay horta aniga iguma dhicin marka wixii aynu aragnay horta maanta waxaan daawanay qiso cajiiba oo aad runtii noo soo jiidatay oo waxa weeyaan ahayd inankii maanta isku dili gaadhay naftiisa jacaylka uu waayay gaadhay magaalada muqdisho buundada boondheera miyahayd may waxay ahayd buundada waxay ahayd waa beri ee magaalada muqdisho ay iska soo tuuray cabdi maxamed nuur baa la yiraahdaa meelo fara badan buu ka jajabay lugta gabadha magaceedu ma taqaan saa u xafiday aad baa lagu soo celceliyay waxa la yiraahdaa iyadana Faadimo Abshir Maxamuud hooyadana Faadimo la yiraahdaa waa reer lagu rogmaday waa sax hadaba sidee wax u dhaceen inanku wuxuu inagu yiri horta inanku ma bahadli karaynba inanku koomo ku jir koomadi saxda ahayd buu ku jirtay saxda ahayd de laba kooma isku raaco waa kii xanuunkiyo kii jacaylka waa double kooma jajabkana meel aanu ka burburin cabdi maxamed ilaahay caafiyo waxa weeyaan qisooyinka u baahan in la iska wacyi geliyo maaha wax runteena annaguna aan ku qoslayno dhalinyarada lagu dhiirigelinayo sheekada un baan doonaynaa inaan si guud idin kala hadalno laakiin waa caruurtana filmadan hindiga ah ayaa laga yareeyo may muqdisho waligeed baa lagu daawan jiray lagama yareyn laakiin waan lagu dhaqmi jirin marka hadda ku dhaqankii baa deel raacay may waa lagu dhaqmi jiray social media han jirin social media waa cadaraha ka dhici jiray baa la yaabay baan ku oo aan Talyaani iyo Mareykan iyo tii soo gaari jiray marka inanku waxa lagu yiri laakiin inantu inanka already waa bay doonaysay marka isaga degdeg qaaday ma soo ma oran karno waxay ku tiri markaan anigu hadalku waan maqlayayo in kasta inta badan adigu ii turjumaysay oo gabadh international ilaahay ka dhigay oo la heli karaynin oo laanta waxba badan ii suurta galeen oo turjumaad dabada ii qabatay maxaad ka fahamtay waxaad igu tiri inantu waxay tiri inanku already diyaar baa markaa waxaan ku hooyada soo weydiiyo u sheego xataa deynantii aan doonaya deynantii halka hooyadii qaban lahayn buu buunda qabtay marka wuxuu ku tagaa meesha taal wuxuu ku tagay nin bay guursatay أنت نيكنا كوا دريا سوق بيون سوق بيسك حلاقة هذا بكالي هذا ما نريد نيكي وما كنت نريد نيكي ودريا لا دو حسا وسوين مش مين هبينك كلي يكون قيد سنة وحكوت العنشلة العنشلة ماشي أما مركو يستني لحوح ماشي يتعلم ورد لحوح وفحيسة يا بري قدامي يا ولالي مركو عاود التليفون كسرت مركو تاني لبضة ما يأتكم عليه مركو أرنتي ذو jeeg canjeelaa baa meesha u yaala baaldi la xuxa meesha loo dhigo bari subaxii laga rabaa waxay ku tiri labada habeenimo weeyaan 8 saac oo habeenimo labada habeenimo exactly waa 2am ayuu soo qaraacay de 2am qof maartay baaldi canjeelo u yaala taa way ku saxsanayd waxay tiri waniyo shaqa ay talaniga morningkii waan kala hayaa iga daa ta kalena de waxay tiri asayna waa u saarnay laakiin soo tala qabo asayda de waxa la yiri gabadh waxay horta tiri horta ana waxay tiri ninkan aan hadda guursaday walaal maanta ma sha Allah oo misan baa ku kul horta waxay tiri ninkan aan hadda guursaday bay tiri Faadimo Bashiir Maxamuud waxay tiri ninkan aan hadda guursaday aniga waxay tiri been la amal weeyaan kurkan dhan waa been bay tiri oo isna u daawan doona cajalada caawa xawdan waa baak fadhida hadii doonto laabkiisa fadhida ugu fadhiyaa waa been bay tiri wax kama waxay tiri guurkan
waa iska xabad kan beenbeen isaga lee ku xumeynaya maaho kan isrida lee ku xumeynaya beenbeen waaye isna xumeyntii waa taas haddaba isna uu isriday maxaa haddaba xala waxay tiri ku xumayn leh waaye ninkan waxay tiri waxaasee camal laakiin sheekada ugu yaabkuna waxay tiri he maxaa laga qaban karaa waa dhacdeen booye horta reer muqdisho waxaan ku jeclay waxa loo markay dhacaan maxaa hadda laga qaban karaa oo runtood ma ogtahay wax soo dhacay baa la rabaa maanta dhan la isku camanto hadda waxa laga qaban karaa inanka horta inankii waayahaya sidan hadduu u burburmo u dhaawacmay dhaawiciisba ku rabtaa adaa sheekada dhegeysta si fiican may waxay tiri wada dhegeysanay wadi aad u fahmay may waxay tiri mataqaanaa hadduu saas sameeyay ani moogta waxay tiri hooyadaa u tagaan dhahay istuur ma odhan marka hooyadaa u sheeg gabartii aad jeclaatay haye walaal inanka ile jacayl baa hay qof jacayl hayana dee go'aanada fara badan oo khalad u qaadan karaa mideeda kale qof dhan oo ku jeclaa markaad tiraahdo waaba lay guursaday dee wax kastuu samaynaya waa kasoo tegay bay tiri hooyadaa u tag soo weydii bes inankii de muxuu waaba iskaga tegay hooyadiina hadda ka hor bay tiri hooyadiis ma rabin islaanta faadumo maama faadumo lamay rabin gabadha mar hore waxay ku tidhi ay u diiday mafahanti marka waxay tiri cadhan lee u guursaday ninkan aniga hadda laakiin hadda hadduu jabo bay tiri oo isa soo rida buundadii waa beris ka soo tuuray anigu kaygaa iska haysanay abasee lee u roon intuu igu meeraysan lahaa saas lee u roon hadda waxay tiri dee markii uu lugihiisa qabay baan wax isla egeegileyna hadda hadduu soo jajabay xaaladdu waa yaraada may waxay tiri saa lee u roon marka adigu mar walba haddaad eegto raali ahaada telefoonada waxaweye telefoona jacaylkan waxba ka aqoon xaaladaan aan fahansanayn baana soo qaraaciyay waxa weeyaan waayahay arrintu halkaa markay marayso kanna way guursay asaydu hayahay daba u saarnayd kan waxa lay waa mid hore da asay hadday saarantay markaa asayda waxay markay asayda saarnayd bay isbarteen gabadha horta sideedaba meesha isku barteen u taqaanaa maama faadumo markii ay hadashay waxay tiri odaygayga bay tiri igaarka aabihii oo wiilka aabihii waa inankan is soo tuuray aabihii inankay soo tuuray aabihii ayaa waxay tiri wuxuu guursaday maamo guursaday gabadh guursaday arooska waxay tahay ma u samaynay guri ma u samaynay gabartan inankayga waxa arooskeeda samayntiisa ninka guursaday oo islaanta qudheeda daba dhigay haddaad guursatay orad adigu hawshaada iska wadade waxay tiri halkaas isku barteen gabadhan halkaas dabtana waxay tiri gabadha markaas ayaaba asay saarnay kadib waxay tiri gabadhii ninkay inankayga markay halkaas isku barteen oo gurigii wada joogeen bay tiri oo odayga u wada shaqeynay odayga arooskayga maamadii arooska u wada shaqeynay baa is jeclaadeen waxay tiri wiilkayga saa un bay ogtay way ka dhaqaaqday bay tiri nin kale raacday kan hadda qabaa marka reer muqdisho naga cilmi badan marka calay xaal inankii already waxaan loo eedeyn karaynin isagana dee uu soo qalbi jabay oo already gabadhii la guursaday buu arkay oo hooyadii haddii doonto lamay rabin oo wixii oo dhan baa ku wada buuqay laakiin muhiimiyadda ugu muhiimsan waxaa weeyaan dhalinyaradu inay dee xal raadiyaan oo inuu xalku noqon buundadaasna kulli waxaan u malaynaya imika laga bilaabo dee boodhari two malaa muqdisho way heshay cilmi boodhari unbaa dee la tegi jiray soo maaha berbera dee imika buundadaasaa boodhari two ayna kuwaanu dhimanuune waa buundadii jacaylka miyaad aragtay wuxuu yidhi lafi kama noolaa wiilkaas wuxuu yidhi laf isagoo kumaba talagelin inuu noolaado maya dee inuu noolaado laakiin aad uma qiyaasi kartaa qofka inuu jiro jacayl heerka inaad iska dhimato ku gaadhsiinaya mise jacaylka marka horeba xuska ka soo qaado waxa weeyaan maskaxiya mana qof caadi ahayn talo dee maamadaaba sheegto waxay tiri gabarta waxay tiri wiilku maskaxda iyo qalbiga isragay jacaylle waalay bay tiri baa marka reer xamar un baa aaminsan jacaylka ala kulli xaal dadkaas uma baatamise halkaasuu ka yimi sheekadaasi naga cilmi badan aadna way nooga yaabisay laakiin please ha ku dayanina dhalinyarada khaasatan baanu leenahay muqdisho idinkuna buundada laga bilaabo imika waxba boodhariya naga joojiye please naga joojiye laakiin iyada un jacaylka ku siyaarta meel kastoo naga daawanaysaana aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa waxaanu leenahay waxaa jirta dhalinyaro hadda soo koraysa waxaa jirtay dhalinyaro waxaa jira caqligooda aanu dad badan oo weliba dhalinyaro xataa hayn marka haddii aad tustaan oo tirahdaan qof waliba buundadii waa beri buu tegayaa halkaasun baa lagu wada daadanayaa bliis naga joojiya wax kale ku bedela caruuraha iyo dadka soo kacaya yaryar taa hadda inankaas cabdi maxamed nuur buundada uu xusa laakiin buundada waxa la loogu magac daray sida universal ka dhageysanayay maanta buundadii baa loogu magac daray already taniga taa inuu hadduu dhinto xataa xabuu ka tegay naga da wiilku hadduu dhinto wiilka record buu xidhay inkastoo lafi ma noola marka waa record uu lafihiisii dhaafsaday inantaana waxaan kula dardaarmaya anigu shakhsiyan qofka bini'aadanka ah maye maanta naftiisa ku haligay
qofkaas baa run kuu maya jecel maya waxay tiri waxaan le kaftan le waaye bay tiri hadduu laakiin dee burburiyey bay tiri maanta anigu markii hore dee lugeynayay baan rabayay marka waxaan leenahay walaal adigu dartaa isugu kaa burburiyey please insha allah idayna wax la qaba ma rabay tiri waxay tiri anigu kaygan le iska saas le anigu dhakhtarka le u roon bay tiri anagu ay codsigu baan u gudbinaynaa laga yaabaa inayna yeeshee aduguna maxaa tala u gudbinaysaa ha ku sii dirin adigu wada diradiraalaabad u egtay may wallahi waxay tiri saas le u roon dhakhtarka le u roon iyadu inta tiri iska day adigu maxaad waani may anigu waxaan leeyahay horta ilaahay walaalkeen ha caafiyo alxamdulilah ilaahay qalbiga u qabojiyo maamadii odaygii arooska ahaa iyo halaagmihii reerka halaagay naagtay gabadha isu keenay isagaa isbaray balaayo waxaan leeyahay balaayoy inanka si fiican u dabiibo dawada ka bixi oo dhakhtarka ku ogow oo gabadhii aad aroostay balaayo aad aroosatay balaayadii kalena dhakhtarka waani baa ku yidhi wiil iyo gabadh balaayo ah marka insha Allah billahi karim dib baad noola socon doontaan dad mahadsantiin maxaad inta ugu dambay horta waan isweynay haddan dib u soo bilownay halkan ku maqnayn boo dib baan ka sheegi doonaa marka maca salaama bilaayo